السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشا كحرن تيفيغا سنكلار سمالي تيفي يقرحي سبورتس تيفي اديا ضيان دين سلاميا وانيقو عبدالله الشيخ عبد الرحمن اما قرحي waxaan caawa halkan ku qaadi doonaa aan ku falanqayn doonaa ciyaarihii ka dhacay ciyaarihii maanta dhacay koobka adduunka ee ka dhacay Qatar waxa dhacday laba ciyaarood oo inaba aan caadi ahayn laba ciyaarood oo faraha la isla tagay waa Croatia iyo Brazil Argentina iyo Netherlands Croatia iyo Brazil waa laba kooxood oo kubadda cagta taariikh ku leh Brazil waxay haysataa koobka adduunka waxay ka haysataa 5 koob ayay ka haysataa Croatia hal ayay haysataa Croatia waa kooxdii laga qaaday koobkii ka horeeyay sanadii 2018 finalka ay isugu yimaadeen wadanka Faransiiska finalkana laga qaaday halkaas Brazil waa mulki waxay ka mid tahay mulki waxay ka mid ahaan jirtay caawa ka mid ma aha waxay ka mid ahaan jirtay mulkiilayaasha koobka adduunka guumeystayaasha koobka adduunka ayay ka mid ahaan jirtay laakiin taariikhdii waxba isbedelay halkii lagu filayay meel aan ahayn ayay maanta ka baxday Croatia iyo Brazil haddii aad daawanaysay wadankaad joogtaba meeshaad joogtaba ka soo daawo iyo haddii ay maqaal kugu ahayd marka ay wada ciyaarayaan waxa niyadaada aad sii gashanaysay waxa ku soo badin doona Brazil sababtu waxay ahayd haddii aad horey u soo daawatay ciyaarahan kooxda Brazil koobashii ka horeeyay garoonka waxa ku sugnaa ciyaartoydii hore ee ahaa halyeeyadii wadanka Brazil taariikhda baal dahaba kaga qoray dhinaca kubadda cagta waxa garoonka fadhiyay laacibkii weynaa Ronaldo oo ahaa ninkii taariikhda meel ka soo galay sanadii 1998 ahaana laacibkii ka soo dhaxbaxay isagoo da'yar meel aan laga filaynin waxa iyaduna xusid mudan in uu beel yahay ciyaar laacibka adduunka uu aqoonsan yahay dhinaca kubadda maanta se ku xanuunsanayo inuu nasiib u yeelanin inuu daawado ciyaaraha ka socda Qatar waxa iyadana la ilaaweynin Cavu Rivaldo Ronaldinho iyo laacibiintaas oo dhan ayaa iyaguna aan la ilaaweyn waxa maanta la filayay ciyaarta ay safanayaan Neymar Vinicius iyo Anthony afka hore ay ka safan yihiin in ay maanta ayna guul darro ayna ku soo dhacaynin laakiin wixii been waxa yiri macalinka kooxda Croatia waxay soo ciyaartay 9 koob adduun ayay u soo safatay waxay timid finalka ayay timid sanadkii hore sanadkii hore ma 2018 waxay la ciyaartay wadanka Faransiiska macalinka meesha uu maanta wax ka khaldamay waxay ahayd macalinka Brazil waxa uu isa siiyay guul uunan haynin ayuu isa siiyay haddii aadna daawanayso fadlan share gare si ay u gaadho walaaladaada ama saaxiibadaada kale ee ku signa fadlan share gare ayaan ku leeyahay macalinku wuxuu isa siiyay guul uuna lahayn maanta waxa uu saaray Vinicius iyo Anthony ayuu saaray oo ah labadii baalle ee ugu adkaa koobka adduunka inta hadda taariikhdu ay tahay ayuu saaray wuxuuna soo geliyay laba ciyaartoy kale si kastaba ahaatee heerka maanta aad marayso Vinicius iyo Anthony maynan saaritaan maynan halka marka ay maraysay kooxda Croatia isma ayna bardhiganin waxay sii waday xoojinteedii iyo dagaalkeedii waxa Neymar ayaa gool uu aad uga soo shaqeeyay oo aad u xoog badan oo uu difaaca jiray gool hayaa u jiro oo aad run ahaantii ay ugu baahdaneed Brazil ayuu shabaqa ku soo obsaday laakiin farda la isu hayo la isuma faano waxa isla markaa shabaqa soo taabsiiyay wax yar kadib kooxda Croatia ayaa shabaqa ku soo obsatay gooshii baraajada haddii mar halka la isla gaaray waxay noqotay in la noqdo overtime ka ama 30 daqiiqo dheeraadka ahaa in la ciyaaro macalinka Croatia wax uuna marnaba maanta taariikhda uu ku xusay shaxda iyo kalsoonida iyo sida uu ku ciyaarayay taasoo uu lahaa oo ka arkaysay Modric oo ah guumeystaha dhexda ciyaaraha inta badan dhexda aan marnaba numberka 10aad ugu calaamadsan kooxda Croatia
dhexdana haya ayaad arkaysa isagoo caawinaya difaaca oo leh banooniga marka uu u baxayo isagoo usii boos baxaya difaaciisa la hadlayo leh dib aniga dib iga laabo dib xaggayga dambe sii istaag markuu isagu difaaca uu ka soo marna ismu una dhigin gooshi hadda ay ku baraajeynayeen isaga ayay ka timid halkaa markii la isla gaadhay waxaa maanta baxday ciyaartaas waxaa baxay waxaa halka laba kaar ayaa waxaa baxday 4 kaar ayaa baxday 3 ka mid waxaa qaatay Brazil ayaa qaatay Casemiro hal ayuu qaatay Danilo mid ayuu qaatay Margasna mid ayuu qaatay halka uu ka qaatay Marcelo uu ka qaatay kooxda Croatia waxay xaqiiqsat waxay kubadii horta waa la wada bartay baashi kubadda haddii aad u taqaanay Brazil iyo Argentina iyo France iyo English ay aad u taqaanay banooniga isu jiideen baashi kubadda waa la wada bartay waxaad arkaysaa Sacuudiga oo 4 Argentina ku dhuftay 2 Argentina ku badiyay 4 ku dhuftay oo kaga badiyay xasuuqay baad arkaysay maanta haddaba Brazil oo loo asteynay on halkan in badan aan ka sheegnay TV-yadan aan ka sheegnay in Brazil final ay tagi doonto ayaa maanta la xasuuqay oo hadda garoonka ka baxday aan safar ku soo jirin oo meesha waxa kaaga cad haddii mar laacibkii weynaa Gabriel Jesus uu meesha uu ka maqan yahay uu operationna galay oo ay Brazil uu ka baxay afkeeda hore Richardson waxba kuma uu haya meesha macallinkuna raalli kuma aha laakiin danta ayaa ku khasabtay wax goolana difaac ma uu mari karo maantana waxay banaanka ay ka taagan yihiin ciyaarihii waxaa iyadana la wada ciyaaray ciyaar taariikh horle qortay oo ay wada ciyaareen Argentina iyo Netherlands ayay ahayd ciyaartu markay 35 daqiiqo ay maraysay gool ka timid Messi ayaa waxa shabaq u soo hubsaday Monila ciyaartoyga la dhaho ayaa ku soo hubsaday waxaa la qaatay ciyaartan 16 kaar oo kaarka yelowga ama kaarka huruudda loo yaqaano ayaa la qaatay waa ciyaartii taariikhda ugu kaarasha badnayd 16 kaar oo kaarka huruudda ayaa la qaatay iyo 1 kaar oo kaarka casaanka ayaa iyada la qaatay oo uu qaatay Denzel yarka lagu magacaabo afka hore uga ciyaara Netherlands waxa iyadu xusid mudan in garsoorahani wuxuu ahaa garsoore u dhashay wadanka Spain waxa uu ahaa waa garsoore aad u khibrad badan laakiin waqtiga iyo ayaa ku khasbay marnaba kaarku intuu doon ciyaartoyga dad waxaad arkaysaa leh garsooruhu intaasoo kaar buu bixiyey intaasoo kaar hadduu bixiyey shaqadiisa ayuu ku waayaa no sidaa ma aha garsoorku sharciga waxa uu meesha u joogo in uu ilaaliyo uu ku ciyaarta sharciga ay leedahay FIFA ay leedahay iyadoo uu leeyahay qof hogaaminaya oo sharciga ku dul akhrinaya ciyaartu inta ay socoto ka dul akhrinaya oo la hagayo leh sidaa iyo sidaa haday ku dhacdo qodobka ayay waafaqaysaa ay leedahay oo ay suuroobayso haddii kaarkaasi uu ku baxo in la reverse gareyn karo laakiin wax ka khaldana garsoorka ma jirin ciyaar si fiican oo iyagu qabsay Argentina waxay ku soo baxday ciyaar aan Messi saameyn kuma laha magaca Messi waa magaca Argentina ayuu wadaa laakiin sida waxaa ka rajo fiicnayd sidan ciyaarta shaxdan ay maanta Netherlands kula ciyaarayaan hadday kula safanayaan Croatia waxay ka gudbaysaa quarter finalka ayay u gudbaysaa semi finalka way dhaafaysaa sidana kuma si ciyaartoyga difaac ciyaartoy waadka ayaa next match u ah 2 yellow buu qaatay inkastoo uu bedelay wuxuu fiicnaa inuu ku daayo ay ahayd haddii marba uu u ciyaaraynin inuu ku bedelaan bay ahayd oo ku daayo Argentina wax saameynsa amaanta ciyaarta waa laga haystay Netherlands goolasha iyo way ka daba yimaadeen way ka awood badnaayeen way baraajeeyeen gool kulaad ayuu yimid gooshku haday mar gool kulaad noqotana waxay ku halbada ku xiran tahay macallinku ciyaartayda uu soo maranayo ee uu ka soo maranayo ciyaartiisa sida ay u soo dhigeen ayay ku xiran tahay marka haddii aad taqaanay Brunei ay soo celceliyaan Latin America Europe sanada way ka duwan tahay Latin America xabad baa ka socota Argentina baa halkaas koobasha waxaan naqaanay Latin America isku qabsato xilliga Brazil lagu qabanayo kale waad ogeydeen 2014kii halkan
halkan baa laga qaaday waddanka xigeen baa la geeyey lagu dabaaldegayey Argentina saameynteeda sportigu waa noocaas laakiin waa arki doonaa ciyaarta waxa dambe la ciyaari doonto waa Croatia berito maalinta sabtida ah waxa iyaduna dhici doonta ciyaaro annaba caadi ahayn waxa ciyaarta u horeysa 9 subaxnimo marka ay Central Time-ka xilliga Mareykanka wadashan aan joognay tahay ama Afrikada bari ay marayso 11 subaxnimo waxaa ciyaari doona Morocco iyo Portugal Portugiisku waa Morocco waa nimankii waxaynu ogeyn soo dhigay waa niman ciyaartoodu aaninaba caadi ahayn goalkeeper-kay wataan ma sahlana waxa la ciyaarayay waa Portugiis ani saameyn saa ciyaartan iyo Morocco markaan isbarbar dhigo wax saameyn saa oo si aan uma sii arkay waxaan aaminsanahay in ay ka badin karaan ayaan aaminsanahay waxay ku soo galaysaa shaxda uu ku soo galaya macalinka waxa uu ciyaaraya 4-3-3 ayuu ciyaari doona macalinka Morocco meesha uu ka labada shax waa isku mid 4-3-3 ayaa la ciyaari doona laakiin waxyaa iska bedeli doona saacadaha soo socda sida aan rajeynayno ciyaartu marka ay ka dhiman tahay waxa toos loo shaacin doona shaxda saxda ee lagu ciyaarayo ciyaartu marka ay ka dhiman tahay 2 saacadood ayaa shaxda la shaacin doona ciyaarta ani hadan si saadaaliyo fikirkaaga hadii aad daawanayso nala wadaag fikirka waa muhiim hadii aad ani waxaan ku sii saadaalinaa ciyaartan baashi kubadeed waa la wada bartay Afrikaan ku soo haray hadda taqaanay wareega 16 iyo wareega aan soo dhaafinay wareega 16 waxa la marayaa in aan semi finalka in laga gudbo oo quarter finalka loo gudbo afar ciyaarka loo gudbo ayaa la marayaa Morocco sida ay shaxdii iyo ciyaarteyda idabta iyo isku dhisniga iyo banooniga sidoo isugu xiran yahay ay u ciyaarayaan waxaan aaminsanahay in ay ka badin doonaan Portugiisku waa ciyaartay taariikhda kule meel laakiin shaxda Morocco way ka duwan tahay ciyaarihii hore ee Afrikaanka laga bartay loogu ciyaaray ciyaarta kale waa El Clasico waxa weeye dagaalkii qaboobaa ee Europe ayaa berita iyadana dhacaya marka ay tahay 2 duhurnimo Central Time-ka Eastern Time-ka ay tahay 2 duhurnimo Pacific-na ay tahay 12 ay tahay Pacific-na ay tahay saacada Afrikada barina ay tahay 7 fiidnimo ayaa waxa dhici doona ciyaar u dhaxaysa England iyo France ciyaartan England iyo France waa 2 ciyaarood oo 2 kooxood oo darisa oo 2 wadan oo darisa Europe ka wada tirsan laga ciyaaro ciyaaraha ugu qaalisan ugu awoodda badan Premier League ciyaaraha Europe laga ciyaaro Talyaaniga ka Francisco uu adag yahay ka Ingiriisku waa kana wada ciyaarteyda u ciyaarayso waa kuwa Mbappe oo ah ninka waa ninkii gacantiisa ku haya koobkii ka horeeyay World Cup-ka waa ku guuleystay waa ninka ugu goolasha badan hatta Ronaldo marka laga ciyaarahan ay hadda la socda ee World Cup-ka ciyaarteyga hogaaminaya way dhinaca goolasha hogaaminaya way berito waxa aaminsanahay inuu gool badan u keeni doono gooshiisa uu horay waa lagu soo dhow yahay inuu horay u dhaqaaqi doono uu gool ka keeni doono Ingiriiska laakiin waxaan marnaba dhinaca Ingiriiska waxaan marnaba aan lahayn Francisco in qabasho yarkan Saka la yiraahdo Bukayo Saka difaaca uu hayn kara ninka la yiraahdo Kane oo difaaca uu yar caburin kara laakiin banooni dhisan oo qurux badan baalayaasha ka soo galaya Francisca laga soo galay baalayaasha Ingiriisku ay wataan way adag yihiin laakiin waxa laga yaabaa in ay weerarka Francisca ay uu joojin waayo difaaca Ingiriiska ayaa berita laga yaabaa waxayna u egtahay in berita ay ka soo bixi doonto kooxda wadanka Francisco ay berito ay maalintaas sabtida iyaguna berita ay ku soo guuleysan doonaan daawade haddii aadna daawanaysay barnaamijkan wuxuu si toos uga socdaa St. Clair Somali TV
iyo qoraxay sports tv haddii aadna daawanayso fadlan la sii shargare la wadaag asxaabta kale asxaabtiin si aad u noqdaan kuwa ugu horeeya ay helaan sidoo kale tvgani waxaad ka daawan kartaa tvyadan waxaad ka daawan kartaa ciyaaraha sportiga khaasatan ciyaaraha ka socda Somaliland dowlad deegaanka iyo goordhow naga filo ciyaaraha Premier League ee ka socda ka dhaca Somali Premier League ee garoonka Muqdisho Stadium ka dhaca goordhow iyadana naga filo waad ka daawan doontaa haddii aad nagu xiran tahay fadlan la wadaag inta ay mar kale isugu iman doono waa aniga oo ah qoraxay oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh